waxaa maanta magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed oo ay weheliyaan qaar ka mid ah labada gol ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan iyo saraakiil ciidan ugu horeen gudoomiyaha xogeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Marwe Canab Axmed Ciise ayaa hadallo soo dhaweynaa mas'uuliyiinta u jeedisay maanta waa farxad waxaa dib ugu soo laabtay caasimadii dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaheena Cusmaan Barre Maxamed iyo waftigii u ballaaran oo uu horkacaayo waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow waxaad ku soo dhawaataa Hirshabelle oo maanta ay tahay 9 Oktoobar maalintii la dhaarshay xildhibaanadii baarlamaanka Hirshabelle ku soo dhawow waxaan rajaynaynaa 4 sano dhamaatay inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii dhimatay oo baarlamaankeena ka baxday inuu Ilaahay u naxariisto dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa sheegay imaatankooda magaalada Jowhar inuu yahay mid ay hordhac u yihiin wafuud kala duwan oo dhawaan la filay inay soo gaaraan magaalada Jowhar si loo gudagalo dhismaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle maanta runtii waxay noo tahay farxad gaar ah waa maalintii nala dhaariyay waa maalintii aan u dhaaranay Hirshabelle sidaan ognahay Hirshabelle wax badan ayaa u qabsoomay cidii hadda moodaysay in wax u qabsoomay runtii Hirshabelle waa dowlad goboleed maanta calan leh oo dastuur leh oo yacni golo baarlamaan iyo runtii golo fulin leh wax weyn ayaa u qabsoomay haddana waxaan leenahay shacabka reer Hirshabelle meel kasta oo joogan iscaafiyana waxaa la dhisi doonaa dowlad goboleed kala cusub ama baarlamaan cusub iyo yacni golo cusub ayaa la dhisi doonaa qofkii Ilaahay u calfa dhammaanteen hambaliyaan isku direynaa sanad guurida yacni afraad ee maanta dhamaatay sidoo kale annaga waxaan u nimid wada tashi dheer oo ay muxuu ahaay aan la sameynay yacni duubabka dhaqanka iyo dowladda dhexe iyo cid kastoo Hirshabelle bulshooyinkeeda ka mid ah in Hirshabelle maadaama waqtigeeda uu dhamaaday Hirshabelle in la dhiso baarlamaankii labaad runtii ay dowladnimada ka bilaabatay in la dhiso ayaan u nimid wufuud kale fara badan waa imaan doontaa annaga waxaan hordhac u nahay wufuudaas kale soo socota ayaan hordhac u nahay Ibrahim Ali Nuur TV Universal garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe